waxyaabaha qariibka ah waxaa ka mid ah waxay Soomaalidii magaalada joogi jirtay ceeb u yaqaaneen ayay iminka kuwan dambe ilbaxnimo ugu yaqaaneen مثل magaalooyinka waxa la soo dhan jiray hebel waa dhoorka soo taqaaneen Soomaalidii baadiya ku noolaan jirtay gafaadh iyo biyo iyo waxba ma jirin marka carruurta way u xiiri jireen laakiin inamada iyo hablaas ay u kala soocaan qaarna food bay u sameyn jireen qaarna dhoor bay u sameyn jireen ma banaana diin ahaan in qofka timaa inta laga xiiro in yar la soo reebo magaalada marka la yimi qoladii magaalada joogtay qofka ay leeyeen waa reer baadiya ama waxba garan maayeen waa dhoor rabay oran jireen iminkana dhoornimadii ba faan idin noqotay waayo gaal dhoorraaba aragteen waxa ajabta qaba gaalku markuu dhoorraan noqday ayaa dhoornimadii halka kan faan ka noqotay waxaan leeyahay dhaqan waliba oo dad leeyay wax xun wax san iyo wax wanaagsan ma leeyay diimaha waxa loo soo dajiyay in lagu saxo dhaqamada wixii qaldama marka ka diin ahaan muslim baynu nay dhaqankeena waxa ku jira qaldan inaynu saxanna bayna saaran inaynu dhaqanka ka guurayna ma saaran laakiin waxayna saaran wixii qaldan ku jira inaynu saxanno de kana ay weydiinaysaana waa dhaqan gaalada ma ku dayanaa un ilaa kaama aha Soomaalidii hore ma ku dayanaaye waxaad u jeedaa in gaal Mareykanka degani kuwan baasketka ciyaaraha xiirtay dadkoo dhan ugu xiirtay xiirnimaadkii waa noqday iminkay gadhka la baxeen dadkii oo dhan gadhku la baxay gadhkiiba ammaan noqday yani gaalka markaan joogay maalintu xiirtana inaad xiirato maalintu timaa la baxana inaad la baxdaa waa ceeb waxay qof muslimo culture iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysan